وزير ما سنتي وقتها قال إنه كذا ما علنا إسلام كور قبنا قلبيت حالات بكتاجن سوجت الدمدوين بدن بالمركن رجال كان على ده سيدكم بالعمل دول خاصيات دجنا أو تاريخنا مركن تبي تعمل. بسم الله الرحمن الرحيم ظاهر وضع ما سنتهاي المركز اللي قاعد ليه اسكودا عن ودحية مركز صومالية يعني فرتها هالك وكسو جيدو ضد كالتاريخ ده وحكا قراء قاركود وحي تلمامان إنه بلعمي قرنيجي اللي حيطمنات نسان نقصون هاي ضد كان صومالية يعني فرتوبا قومية الصومالية قومية يعني فرتوبا وحي كتر سنة جيرين قار كمية الدولة دي هي جيس أفريقيا كجري إسلام كها سيدي دولة دي ما درتاني عضل أما عوضل مركز تاريخيا waxay sheegaan siyaasiyiintii ka tirsanaa Soomaalida ahaa iyo kuwii canfarta ahaa ee dawladda ku jiray loolan dhexdooda ka jiray ayaa markii dambana sababay inuu u gudbo dhinaca markaan xoolo dhaqatada marka dagaalku waqtigaas qarniga 16aad halkaas uu ka bilaabmay bay yiraahdeen qaarna waxay sheegaan inuu qarnigii 13aad bilaabmay marka laakiin la eego dad xoolo dhaqato ah oo wadaaga inay isku dhacaan oo ay biyo iyo dhul daaqsimeed isku jiiraan waa wax jira oo meel walba maaragtaanay ka dhaca taariikhan waqtiyadaas la sheegaa in uu soo bilaabmay dhulkan qaabkii loo kala diganaa marka laga hadlayo saan soo sheegnay dadkani dawladahaas islaamka ay ka tirsanayeen مثلاً كون شام بقولي تضوي تضواتنكي حرنتي ماركتاني دولتي أضل أما أوضل هرر أحيد وحلو وريجيه والله رأي مجال ده أوسع هذا الله يقانو سعيدة ديجان كعنفرت كترسن السبب تهلك الله جرى إنه وحي هيد لبع الرماد مد وحي هيد ورمضة أو مركز دين الإسلام كان هيسن هي دبعتوين كو هيسي مجال ده هرر taas ay ahayd ayaa sababaha kamid ah midna waxay ahayd loolan gudaha ka jiray oo iyadoo la leeyahay bal dhibaatooyinka si loo xaliyo ayaa la yiri ayaa la go'aamiyay in loo raro xaruntii dawladii adal ama awdal awsa loo raray marka halka loo raray dawladdu waxay ahayd dawlad ka dhaxaysa dadka muslimiinta oo dhan هذه Soomaali tahay hadi canfar tahay hadii ay maaragtaanay dadkii carab tahay dhulka ku noolaa tahay iyo qoladii balow la oran jiray guud ahaan dadkii muslimiinta ahaa ayay dawladdu ka dhaxaysay xarunteediina waxa loo raray Awsa marka qarniga 16aad Awsa ama guud ahaan dooxada Awaash dadka Soomaalidu way deganayeen dawladdii marka xarunteeda markii halka la geeyay way socotay muddo taariikhdu markay mareysay 1647kii harar baa ka go'day oo imaarad iskeed u taagan noqotay kadib taariikhdu markay mareyso 1764kii canfartii waxa ku dhalatay fikir maaragtaane qowmiya gaar ahaan qabiilka la yiraahdo Mudayto waxay bilaabeen marka dawladda inay afgambiyaan dawladdii muslimiinta oo dhan ka dhaxaysay dawladdii muslimiinta oo dhan ka dhaxaysay inay afgambiyaan bay bilaabeen afgambiga marka ku sameeyeen afgambiga waxa hogaaminayay nin la oran jiray Kadaafo Xanfari la oran jiray marka 1764kii laga bilaabo dawladdii muslimiinta oo dhan ka dhaxaysay waxay noqotay dawlad u gaar ah xanfar u gaar ay noqotay dabadeed suldaano badan baa iska daba dhaxlay dadkii muslimiinta ee dawladda maaragtaanay hoos imanayay nin iyo meel buu ka dhacay laakiin dadka Soomaalida marka horeba wadaag ahayn canfartaygu meel ma tagin gaar ahaan xiisaha salaadiintii canfartu marka waxay bilaabeen inay dagaalo istibajoog ku qaadaan dadkii maaragtaan Soomaalida gaar ahaan xiisaha markaaba dhulka laga soo riixay dadka Soomaalida waqtigaas ayaa laga soo riixay qarnigii 18aad salaadiintu kulli isku mid ma ahayn qaar ba dagaaladoodu aad ay u baanaayeen qaarna mararka qaarkood way soo dhaweynayeen
dagaaladaasi markay isdaba joog bay ahaayeen oo dadka wax ka qoray wax ka tilmaamay waxaa ka mid ah dagaaladaas nin la odhan jiray William Harris oo wafdi Ingiriis hogaaminayay oo shabaab ku socday oo dhulkaas soo maray 1841 wuxuu ka qoray buug la yiraahdo The Highlands of Ethiopia. buugga wuxuu ku sheegay markaa 1838 dagaal aad u ballaaran inay canfartu ama dawladdii Awsa inay ku qaaday Ciisaha. marka dagaaladaasi way cuslaayeen oo isku mid dheeli tirneen inta badan way dawlad iyo xoolo dhaqato u dhaxeeyeen. marka dadkii Ciisaha markii dambe waxay bilaabeen bal culayskan si ay iskaga khafiifiyaan inay la heshiiyaan qabaa'ilka canfarta qaarkood sareerka la yiraahdo Weecima iyo Debney oo marka iyagu aan heshiis la ahayn suldaanka Awsa sidaas bay iskaga khafiifin jireen marka dagaalada markaanay culayskooda dagaalada saas u socda ayaa adu qarnigii 19aad nuskiisii dambe xaaladii geeska Afrika guud ahaan way isbedeshay oo masaari baa soo degtay xeebaha Soomaalida watii harar qabsatay 1875 waxay isku dayeen marka maxay inay qabsadaan Awsana inay qabsadaan oo waxay ka soo degeen Tajoora laakiin kuma guuleysan oo waa la jabiyay masaaridii hogaankoogiina waa la dilay sababa marka masaaridii iyo suldaanka Awsa isku khilaafkooda sii horiyay wuxuu ahaa suldaanka oo qayb ka ahaa in xeebta Casab laga iibiyo Talyaaniga xeebtaas oo marka hore gacanta ugu jirtay masaarida muddo kadib masaaridii waxay daraasiisay xaaladda jirta oo marka canfartu Talyaani bay xiriir la lahaayeen waxa jiray wada ganacsi oo Casab iyo Awsa iyo Shawa isku xiri jirtay masaaridii marka waxay bilaabeen inay taageeraan Ciisaha Ciisu markaa uu dagaal markaa rogaal celinayo dib u bilaabay inuu ku qaado canfartii oo mararka qaar kood wuxuu kala xiri jiray wadadan Awsa iyo Casab u dhaxaysa nin la yiraahdo Elise Reckley oo qoray buug la yiraahdo The Earth and its Inhabitants la yiraahdo qarnigii 19aad dabiiqadiisii qoray wuxuu ka sheekaynayaa oo ka hadlayaa in maaragtaanay Ciisuhu wabiga Awaash ka talaabi jiray oo dagaal ku qaadi jiray canfarta gudaha taala inuu ku qaadi jiray ayuu sheegayaa marka dagaaladuna marka joogto ma ahayn marmar waxa jiray heshiis la xidhan jiray oo nabad la ahaan jiray baa jiray isla qoraaga aan soo sheegay wuxuu ka hadlayaa in waqtiyada maaragtaanay abaaruhu ay dhacaan xagga canfarta haday ka dhacaan in canfartu dhulka Soomaalida tagi jireen oo marka xoolooga halka geyn jireen xilliyada dhulka Soomaalida ay abaartu ka dhacdana Soomaalidu inay dhulka canfarta ay xoolooga geysan jireen marka mar walba dagaal uu nima jirine marmar nabad la xidhan jiray oo heshiis la haaba jiray dhulka sayf la deegaano dhulka marka haddii aan soo noqdo hadda la isku hayo